السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لي الموضوع أن المانتا waxa aynu kaga hadli doonaa waa maxay danta laga leeyahay nolosha. walaal hadaba ma isweydiisay waa maxay danta laga leeyahay nolosha? haddii aad isweydiisay waad garanaysaa hadafka lagu abuuray iyo waxa uu yahay. walaalayaal badankeenu waynu garanaynaa hadafka laynoo abuuray, balse shaydaan ayaa naga hilmaamiya oo inagu tuura badda fasahaadka iyo fuxshiga. walaalkaygow ama walaashayday ma ogtahay inuu shaydaanku yahay cadowgaaga koowaad oo Allah subxaanahu wa ta'aala iyo quraankiisa ku yidhi إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. oo macnaheedu tahay shaydaanku waa colkiina ee idinna colka yeesha, wuxuu idinku yeedhay xisbigiisa si ay asxaabta naarta saciira u noqdaan. haddaba walaal, wax kale la inooma abuurin ee waxaa laynoo abuuray inaan u shaqaysano labada daarood. daarta adduunyadu waa mid kooban, mana aha mid sii daa'imi doonta. haddaba walaal, haddii aad fahantay danta nolosha, ma kula tahay inaad noloshaada u noolaato sidii adiga oo jiray ilaa weligaa? ma kula tahay inaad waqtigaaga u quudho wax noloshaada adduunyo iyo tan aakhiraba aan manfac u lahayn? dabcan jawaabtu waa maya. haddaba walaalkayga ama walaashayda muslimiinta ahow, ka digtoonaada inaad ilowdaan danta laga leeyahay noolaanshahaaga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.